helidda iftiin xilliyada habeenkii waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee aadanuhu ka marmin waana waxyaabaha qayb ka qaata horumarinta amniga iyo badqabka bulshada sababtoo ah goobaha aan mugdiga ahayn xilliyada habeenkii ee leh iftiin ku filan naf waliba ayaa isku aamini karta marideeda iyo in ay danaheeda gaarka ah ku fushato haddaba qaybo ka mid ah xaafadaha Kismaayo kaamamka barakacayaasha iyo goobo ka mid ah suuqyada yaryar ee xaafadaha Kismaayo ku yaala ayaa waxaa laga hirgeliyay leerarka cadceedda ku shaqeeya kuwa oo ujeedka loo hirgeliyay ahayd in ay qayb ka qaataan ka hortagga shaqooyinka ka dhaca goobaha mugdiga ah xilliyada habeenkii sida xadgudubyada ka dhanka ah dumarka dhaca dilka iyo xatooyada loo geysto meheradaha ganacsiga xilliyada habeenkii marka laga rabaaxo guddiga waxqabadka bulshada ee loo yaqaano CAF oo ay hay'adda SWSO ka hirgelisay 5 xaafadood ee Kismaayo ayaa waxa ay u kurgaleen baahiyaha ay qabaan bulshada ee matalaan waxaana codsiyada ee hay'adda SWSO u soo gudbiyeen oo in wax laga qabta u baahnaa ka mid ahaa goobaha mugdiga ah sidii iftiin loogu heli lahaa taa oo yareynaysa falalka amni darro ee goobahaasi ka dhaca xilliyada habeenkii hay'adda SWSO oo kaashanaysa hay'adda Sewawal ayaa waxa ay guddiga uga jawaabtay codsiga ay bulshada ka soo gudbiyeen waxaana ay suurtagelisay in ilaa 32 xabo oo leerarka cadceedda ku shaqeeya ah laga hirgeliyo qaybo ka mid ah xaafadaha Kismaayo kaamamka barakacayaasha iyo goobaha ganacsatada yaryar ee ku ganacsadaan guddiga waxqabadka bulshada ee CAF iyo qaar ka mid ah ka faa'iideystayaasha oo aan wax ka weydiinay dareenkooda kadib markii loo suray leerarka cadceedda ku shaqeeya ayaa waxa ay hadalkooda u dhigeen sida tan magacaygu waa Ciise Axmed Maxamed waxaan ahay gudoomiyaha waaxda Madiinato ee xaafadda Calanley Kismaayo Ilaahay baa mahad iska leh meesha hadda aan joognaa waa suuqii dalcadda caanaha Ilaahay baa mahadsan qolooyin la yiraahdo CAF Calanley markay ogaadeen annaga baahidii dhulkan ka jirtay ee aan isla ogaanay qaadistii halkan baahida ay ka qaadeen waxay u gudbiyeen hay'ad la yiraahdo SWSO wayna ka soo jawaabtay maanta suuqii caanaha waxa la keenay 2 leer oo solar ah insha Allah aad baan mataqaana wax weyn bay noo tahay meesha sandaqada ku yaala dad masaakiin ay leeyihiin oo koronto ku jirin waardiye badan aan haysanin aan awoodi karin in waardiye seexsadaan maanta waxay heleen waardiye kamid ah waardiyaha leerka haday heleen qayb waardiyaha kamid ah heleen aad bay ugu mahadsan yihiin CAF Calanley iyo SWSO iyo inta caawisaba ay waa aslan oo aadan waxaan deganahay xaafadda Calanley gaar ahaan dalcadda aad iyo aad u baahay qabna macnaha soolraana loo keenay baahi weyn noo haysa habeen walba tuuga meelaha naga jabsato aan la toogan nafta noo keentay jaqafi meesha noo ursa habeen walba waa nala dhacaa ilaahay ma hadda iskale maanta waxaan soo haleelso noo keenay maxay ahayd soolraas noo keenay ilaahay igana khayr hasi ajir xasanaad Allah ka siiyo in loo sii kordhino waa rabnaa baahida saacad soolraas ugu qabnaa maanta waana naloo taagay dhibaatada qabna waxay ahayd meel soolar aan mugdihan ku jirnay qof mugdi ku jira iftiin hadii la keenay iftiinku ma usii fiican Soomaa marka tuugada marba iska soo galaysa dadka seexanay xataa waxay qabaan cabsi oo macnaha maxay ahayd ama balidin dilaaba cabsi ay qabaan marka hadda alxamdulillah di solar naloo keenay macnaha jawi hore jawi iska bedelay aan maxay ahayd aan maleynaya salaada fayeenka CAF Calanley saaka waxaan ku suganahay xaafadda Calanley gaar ahaan waaxda Madiinato runtii maalmahan waxaan ka wadnay halka assessmenti si aan uga faa'iideyno nalalkii loo suro lahaa dadka meelaha baahidu ka jirto inta kadib waxaan soo aragnay anagoo CAF Calanley meelaha ay ka jirto baahi gaar ah oo looga baahan yahay nalalkaas soorarka hirgelinayso SWS marka hore SWS aad iyo aad u mahadsan tahay dadka xaafadda ku nool iyo gudoomiyaha waxaanu si gaar ah ugu magaranaysaa ugu adkaynaynaa inay ilaashadaan leerkaas si maartay oo fiican ay uga faa'iideystaan waxaan la dhahay Jamiil Maxamed Jaamac waxaan ka tirsanahay hay'adda SWSO
kaaf waxaan xaafadda Madiino iyo ifi aakhiro waxaan ka soo surnay baalayaal oo u baahan shacabka xagga nabadgelyada soolaro ayaan u shidnay hay'adda noogu deeqday SWSO ka rajaynahay hay'adda inay u saacidiso baahida intaas ma soo koobi karto ayagoo aad u cabanayaan xaladaanay nalkaas aawgiis la'aantiis aan ku fakanay tuugaan qabanay oo soolarkaas aan ka helnay faa'iidadeeda Xaaji Yuusuf Axmed Waaray ka tirsan odayaasha xaafadda shaqaalaha waaxda Hilaac ka tirsan odayaasha dhaqanka ee Jubbaland waxaan halkan ka cadaynayaa in hay'adda WSO cabasho aan u gudbinay ay noo soo jawaabtay oo ah in maarta magaalada xaafadii mugdi uu ka jiro si amaankeeda iyo nidaamkeeda loo ilaaliyo solar aan ka codsanay ayna inoo keeneen haddana la surayo xaafadii iyo xaafadda ka oo laba waaxood oo xaafadda ka tirsan sidaa darteed weliba waxaan leenahay inta la qabtay dhibaatadii iyo culayska iyo baahida ka jirto kuma filna waaxda waxaan ka codsanaynaa inay ma aragtaa wax ay u bilaabeen waaxda ay u sii kordhiyaan si ma aragtaa aftiinka magaalada ugu bato waxaana ka faa'iideynaa inuu ammaanka iyo nabadgelyada ka warqabkeeda uu wanaagsanaado hadda wad arkaysaa jalaatidii hadda dadka inaan ciyaalkii iyo waxay aansi ay rabaan waagi hore mugdi ahayd hadda way amaadeen oo aftiinka mid loo shiday in maalintii caawada isugu dareynaa in adeegtana rabaan in fursad qaali ay taaneen in ka faa'iideystay hay'adda WSO waa ku mahadsantahay hadda waxaan wadnaa jalaatidii hadda waa kicini laatiko inkastoo jalaatidii dadka dhan ay wada qaataan laakiin hadda fursad uu meheli jiray in ay iibsadaan hadda waxay ugu fiicnaan ilaa 1 saac 2 saac in joogo 3 saac ay u qaataan anina meheradii ciyaalkii dadkii ay iibsadaan jalaatidii laakiin migi hore ay soo baxi jireen cabsi ay qabeen oo taxda ama loo galaalas lahaay tuugada iyo mugdi ay ahayd hadda waxaad mudaa meel kale arag bilacdaada wad ku mahadsantiin ma sha Allah jalaatida sana loo iibina ilaa 3 saac 4 saac in joogo xaawo maxamed mataan waxaan ahay kaaf xaafadda farjan waaxda halgan baahidii loo qabay nalalka xaafadda oo soo codsadeen baahidii annagana waan la aragnay maadaama aan la aragnay waxaan wax u qabeynayna ay ahaayeen shacabka baahidoodina aan aragnay waxaan ula tagnay maxay ahayd SWSO iyo Safe Wall markaan ula tagnay way naga aqbaleen wayna soo raaceen meeshii iyada ahayd way ka sureen haddana baahidii kaala arag shacabkii oo dhan way hambalyeynayaan aaday u jeclaysteen weli waxay codsanayaan in meelo kale laga caawiyo ay codsanayaan marka aad baad ugu mahadsantihiin magacayga waa Kiin Axmed Cali oo ganacsatada ku shaqeysata suuqa Farjano hay'adda SWSO way ku mahadsan tahay soolarada ee noo keentay runtii noo bixisay soo siisay ugu tabarucaaday qeyr Allah siiyo way ku mahadsan tahay gabdhaha moobilada waa looga qaadan jiray dhalinyarada oo teleefanadii waxa iska isticmaasho meesha soo fariisan jirtay xitaa runtii way noo cilaysay anagana mugdiga waan ka cabsan jirnay maqribkii 12 saac markay tahay waan iska xiran jirnay meeshan guryaheena iska aadi jirnay hadda laakiin intay noo xirtay qeyr Allah siiye sidii isu u dhowsina ma aha way iska fiican tahay maasha magacaygu waa Jamaal Cabdi Bashiir ka tirsan ururka waxqabadka Kaafuwaamo ahna gudoomiye ku xigeenka ururka Kaafuwaamo iyo hay'adda WSO markii ay noo dirtay inaan maartay aan soo qiimeeyno wixii loo qaban lahaa bulshada ama xal waara loogu sameyn lahaa waxaan maartay sahan dheer kadib aan soo ogaanay ama aan soo maartay soo aragnay kaamkan iyo baahida ka jirta oo ah leer la'aan oo maartay dadka habeenkii ay aad ugu dhib qabaan meesha maartay maritaankeeda meesha nadaafad darri ka jirtay oo macnaha ilmaha ay fadhiisanayaan ay ku saxaroonayaan baahidaas oo dhan markaan isla fiirinay waxaan garanay inaan halkan ku surno laambada iyo laambada kaleeto waanu ku guuleysanay alxamdulillah waanu u shaqeynayaa farxadeedana waan aragnay ma haddaana waxa iskale hay'adda SWSO iyo maartay hay'adda Safe Wall ayadana maartay naga saaciday magacayga ah gudoomiyaha kaamka oo naaji gudoomiyihiisa anoo ah magacayna maxamed cambar meyka ah insha Allah taala hadda waxay igu wareysateen solarka hay'adda noo keentay hay'adda SWSO marka insha Allah taala aaday u mahadsan yihiin mahad ka sokow waxaan ka rabnaa macnaha waxaan barajeynaynaa hadda intaan hadda ay noo qabteen in ka sii fiican inay noo qabtaan
intaas hadda soolarkaas ay noo xireen maasha Allah aadan ugu raysanay waa ku naaloonaa habeenkii waa iskiga fiidsanaa maasha Allah xaafadda waa noo aftiinta laakiin intaas in ka badan inay noo qabataan jecelnahay hay'adda hadduu Ilaahay ka raali noqdo insha Allah. Maxamed Cumar Cabdi gudoomiyaha kaamkeeba xaafadda Faanoole marka nalkan meesha naloo suray aad iyo aad ugu ladanahay habeenkii mugdiga meesha ay ahayd marka boqolkiiba boqol meeshaan habeenkii markay ahayd waxay ahayd mugdi oo laga baqo oo tuugadii waxyaalo badan ku soo gabado haddana 24 saac marka 12 saac habeenkii waa iftiimaysaa waxaan rabnaa marka kordhin oo intaas ka badan nalal meelo badan waxaa jira saas oo kale ilaa hadda ay mugdi yihiin waxaa kaamka dhexdiisa kamid ah marka waxaan rabnaa in loo soo kordhiyo gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga degmada Kismaayo Cabdulaahi Gaab oo xilliga soolarada la surayay goobta soo gaaray ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in soolaradaani ay qayb muhiim ah ka qaadanayaan amniga goobaha soolarada laga surayna ay ahayeen goobo muhiim u ah bulshada waxaana gudoomiyaha sidoo kale hay'adda SWSO uga mahadceliyay dadaalka ay u hayso bulshada waxaana uu ku dhiirigeliyay in dadaalkani ay si laba jibaaraan soo dhaweynayna barnaamijkan waxa uu soo qareemay ama uu soo dooday hay'adda kaaf ee Calanley insha Allah taala aad baan u soo dhaweynaynaa waanu ku mahadsan yihiin hay'adda SWSO waxaana leenahay inay hore u sii wadaan waxyaabihii kale ee xaafadda u baahan tahay ama waaxyaha magaalada Kismaayo ama xaafadaha magaalada Kismaayo waxay u baahan tahay inay wax ka qabtaan ayaan rajaynaynaa insha Allah.